Sanid Maxamed Cabdinaasir ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ayaa xalay ku dagaalamay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ay xalay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab iyagoo Al-Shabaab ay dagaal xoogan halkaas ku soo qaadeen. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen. Labada dhinac ayaa laga maqlayay xaafadaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu la sheegay inuu xoogiisu ka dhacay xaafada Buula Bacaad iyo waliba agagaarka suuqa kalluunka ee degmadaasi. Iska horimaadka ayaa wuxuu ku bilowday abaar salaadii maqribnimo hubka noocyadiisa kala duwan. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in dagaalka uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Ha yeeshee maadaama xil habeen ay ahayd xalay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca wali si dhab looma oga. Dhinaca kalena howlgallo ka dhana Al-Shabaab ayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka bilaabayaan gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya Sareeye Guute Cabdixamiid waa taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliya Sareeye Guute Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tagay difaacyada ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee ku leeyihiin deegaanada Awdhiigle, Bariire, Sabiib iyo waliba degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa mid u dul istaagay difaacyada isagoona halkaasi kula kulmay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ee ku jira difaacyada iyo saraakiishooda. Taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ciidamada faray inay u diyaar garoobaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab kaas oo laga bilaabayo deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Saaka waxaa xiran jidka isku xira Afgooye iyo waliba Muqdisho. Sida ay sheegeen ganacsatada iyo wadayaasha gaadiidka ayaa waxaa saaka xiran guud ahaanba dhaqdhaqaaqa jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Gaadiidka daabulaya ardayda ka barata magaalada Muqdisho, ganacsatada iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa waxay mareen jid qardajeex ah kaas oo ka soo dhaca degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. Sababta xirnaanshaha jidka ayaa waxaa lagu sheegay in shirkadda Turkiga ee dhisaysa jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ay go'aansatay inay isaga guurto goobta qalabka iyo shaqaaluhuba ay ka yaaleen, taasoo sababtay dhawaan markii weerar lagu qaaday ismiidaaminaha oo sababay dhaawaca burbur hantiyadeed iyo waliba dad. Sidoo kale waxa wararka qaar ay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanayso nabadgelyada shaqaalaha iyo qalabka shirkadda Turkiga inay damaanad qaadayso. Shirkaddan ay ka codsatay inay sii wadaan dhismaha jidka. Shirkadda jidka dhisaysa jidka u dhaxeeya Afgooye iyo Muqdisho ayaa dhawaan shaacisay inay hakinayso dhawaan howlihii dhammaan ay ka wadeen jidkaasi maadaama ay dawladda Soomaaliya sheegeen inaysan damaanad qaadi weyday amnigooda.